السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام أصحاب تشرفت لما يلقستو كنا شيهين الحمد لله. هاي welcome to my channel Adar Media and waxa baraha bulshada qabsaday laba gabdhood oo ma aqaantay dayax miyay isku raadinayaan calantanka labadan gabdhood inay xumaan ka dhaxeyn jirtay laba gabdhood oo isku wanaagsanaa bay ahayd sheekadan ma aqaan la dhoodhoobayo macnaha ka dambeeya ma garanayo ya waxa weeyaan waxa isku dirana ma garanayo waa wax mucjiso ah inay saan barihi bulshada uga soo wada hadlaan Nicimo Joker oo si xun oo xad dhaaf oo caytamaysan oo arkayo lama dhageysan karin xaqiiqdii hadaladeedu waa hadal aan mucjiso ahayn waxba ma hanbayn waxmana ma reebin macnaha farxi ka weero ka jawaabaysana hadalkeedu waa kana I think maxaa la yiraahdaa hadal aan loo haynin oo ayadu aan ku soconin ayay Nicimo Joker horta ka hadashay kiin jaamac ayay ka hadashay kiin jaamac iyo maaragtay arintanka waxay iska qusayeen jireen qabiil iyo adduunyadaas ay sheekadii noqotay waxay waa isku daadsantay ku soo cabalada waxa sheegtay soo diyaarsato عيد جبل كاته هذا إن تيك توك مالها ما قان مثلا لايف فيسبوك إن حصوق شيء بعض إنسو تدريين إن التقانات كلام قريسة all the time وتسأل دور مركوع عمري أن رأيها والله واحد بدنا اسمه قانها برير إن التقانات كلام قريسة وحال كانوا قباقايا قبلها بريالها أتكو قيمها بدن المخالف سمطر مسك خليفي جميلة خليفي يقول بس عدي أسي ورس عدي أسي مسكي جميلو ما ركت كنت شيكتان وتصوها طشان قفتان ما أنا أقون إلهي مسا يتقاني أنا قريقة المخالف سمطرمان لما مر عمل كو أركي أيضا قال كعيا كتبت كبعدنا بوسطنا كو أركي 2005 أيضا مركز تبت أقون تأت شيكاني صرتوا مد نوع عاصة ميلان المكور لي ميلا أور كلها ماشي كو أركتي دي كايدو يدينا المخالفه بحال البين لو nin dhintay iyo qof aad u dheer oo maaragtay marqaad u qabsada horta aqoonta aad sheeganayso oo aniga u kaleem gareynayso waa aqoon noocaas ah Mareykan laakiin si fiican ugu baranay Allah ilaahay ileen dambi ma fiicno waa la dhimanayaa meelan si fiican kugu bartay halkan waxa ka jirta Mareykan especially Minneapolis 2010 markaad Minneapolis ka carreysay oo sandeega u carreysay maalinka jigta cabtay qof kugu horeeyay isbitaalka ugu imaadayaan ahaa weligeed iyo Allaheen waxba isugu imaanin isku sheeka maanan ahayn I didn't know inay jig cabtay gabadhan ya Nicimo Joker waa misdilis maxaa dhacay oo jigta u cabtay waraba daaminaysa gabadhan waxay ka hadlaysaa hadalkii waatana maxaa la yiraahdaa ii sheeg Nicimo Joker maray hadlaysay gudoomiye fanmatiida dhuusada fankaata aniga kiin adeerkay inuu dhalay moogtahay oo naag Siciid Hartiye ay tahay ana naag Maxamed Hartiye ah dal maray ya sheekadu halkaas ay maraysaa Siciid Hartiye Maxamed waa iska ka respect gareyn jiro habar yartaas maadaama dee aan qof iyo dalmar jecel hooyada meeshay ka soo jeeday iyo wixii ma aragtay magac la sheegtaba iska respect gareeyo jecel maadaama aan marka wicil aad ka sheekaysay Nairobi anoo joogo ayaad gabadhayda soo cayday oo tir 20 jir wicil ku joogto alif wax mare iyo wala xul leeyahayna adaa Boston markaan ku arkay ay isu kay sheegtay miyay xusata habareer ilma khalif kaasantooda iyo gabadha galkacay ka imaan jirtay hatta waa garan waayay ka bacdina markay miskii Jamiila Mareykan imaadeen Minneapolis oo taa idinku sheego adeeri habarey gabadhaasan soo arkay ugu dhahdeen Nicimo ma aho gurigeena halaha adiga si fiican sumaadan baranina qofka noocaas ayaa wuxuu rabaa inuu kaleem gareeyo waa ku aqaanay iyo Jamstira iga hor imaatay waxaad qarinayso waad ogeyd iyo horta aqoonsaasa ka tahay xamara ku soo hartay xamar xaafadeena yaad sheegataa hodan dad badan oo xaafadeena deganaa oo loodka adiga kaasi waaweyn iyo ah oo hadda ka hor aan weydiiyayna ilaa aniga adigu isku lood ma nihine loodka adiga kaasi waaweyn dad oo weydiiyayna waxay ugu dhaheen ayadoo weyn galkacay laga keenay xamar kuma dhalan
because waaba kaa muuqataaba inaad xamar ku dhalan qof kasta oo Soomaaliya waa fahmi kariyaa xamar ku maadan dhalan born and raised nimatida adoo weynaad timid alif wax male iyo wala xul leeyahayna adaa laga hayaa talaabo kasta oo qaado qoraal kasta oo caayo soo qorto iyo mid afka ka dhahdaba waad ka shalaydaa I know waad ka shalaysaa because marka hore kama fiirsatid marka Mareykan ku soo laabtay maalin waxa la tusay adoo dhahayo ilmaha liiga caayay la dhahay ilmaha la caayay ani ilma macaaynin qoraaladii oo dhan waa tii screenshot laga soo qaado la soo diray okay horta naag Soomaaliya oo dhan waa lagu wasay wicilaad dhashay balwadaad leedahay waa qayishaa qamraad fotoda isaga shubtaa horta caayid intaas ay noqotay iyo siil weyn Sooma okay wicilkaba ka dhig wicilkaba ka dhigba والله that's really true كلمة صح weeyaan Soomaalida dumarku saas isku caayaan xitaa haday saaxiibin casho milix hadeen oo maanta isqabtaan ya ceebta ay ka hayso dhan banaanka soo dhigaysa waxba yar ma hambaynays naagu saas ay ku caayeen saaxiib naageedna de waxa uu dambaysa saana uu dambaysa tada kala gabdhahan waa gabdho ilma abti ilma eeda anyway sida ay joker tiri waxay tiri anyway ma jarteen baan isugu nimaanaa bay tiri so I don't know marka hooyadeed ma jarteen baan isugu nimaanaa bay tiri marka de meel kasta iskala qaadeen sheekadan waxa weeyaan sheeko ilka case I think ku timid hadalkan ilka case inuu ku yimid baan leeyahay oo farxiyo ay ilka case wax soo tiri qays deetana maxaa la yiraahdaa nicimana ay meeshaas uga taanusay oo maxaa la yiraahdaa iska qabatirida alla kama qabtay sidii u hadashay oh my gosh gacanan ku taaga farxiyo ka weeyr wallahi ma aytamaysid wuxun bad ka hadlaysaa hadallah ka hadlaysaa oo soo qaadanaysaa which is okay as long as aadan aytamaynin aydina ka wareegtay wallahi waa wax fiican baa sameysay anigu kulay waan u qiray inay xaqiiqdii gabta waa akhir sababta qofka markuu caytan waa laga fiican Naima Joker I like it but sidii u caytantay human being ma caytan qofka bil aadanka saas inuu caydid ma laga fiican dameera daamiso san laba maqal lamana arag bay sameeyay laakiin qoftan si degan u hadlaysaa caytamayso wax jiro bay ka hadlaysaa I don't know ilaahay baa og laakiin hadal macquul ah ku hadlaysa wala soo dhoofsaday aan ka dhaxgalo waxa uu jawaabtay gabadha la yiraahdo qaawan waxa weeyaan anigu ma soo qaadanayo ajaladeeda waan hayaa ay ka hadlaysay TikTok-ga laakiin wallahi si aan caadi ahayn ayay uga hadashay maxaa la yiraahdaa ii sheeg ilka case iyo waxay ka hadlaysay iyo gabadha la yiraahdo Naima Joker ilka case waxay tiri si fiican baan u aqaanaa bay tiri soo waxa garatay maaha laakiin waxay tiri Naima Joker waa gabar aan faal gareeyo oo waxay tiri mar ila soo hadasho tiri de Ramadaan is asturmiya ma aqaan xasaas marka si fiican ayay uga hadashay si fiican ayay u hadashay oo xigmad leh oo waxay ku hadashay real aqoon ku dheehan tahay laakiin ayadii ka ilaaheed sida u labisato iyo sidaani u labisan iyadoo u taala waa shakhsiyadayda iskale waxa kama oran karnaa anagu laakiin waxaan leenahay ilaahay soo hadeeyay waxay u hubi labadan gabdhoodna inay heshiiyaan isdaba qabtaan inta goor tahay waa la korsaday waa la biili jiray waxbaa la baray America la keen afkaaga wuxuu ku diirbeelay ilmacaay iyo wicilaa ku joogay wicilaa haystay wicilaa ku joogay Soomaalidu isku cayda sababta ilmaha u ataagayso oo ilmaha u caynaysan marka dadka baraya reality ilaahu haddaan hal beena aan ka sheegan ku dhahay ilaahu haddaan hal beena ka sheego caawa nabad aan ku seexan dibda ban Allah arkin wallahi iyo billahi talaa soo magac ilaahi ma aha inaan been ka sheegin saa adigu aad story been tahay xalay samaysatay markuu ninka kugu qabsaday afqallo uu ku yiri ka bayro soo fashishay
waxay ku soo fashay Facebook ana anigu aan ka dambeeyay caydeeda ay sheegtay story samay xarashan u hayay 3 sano ay caynaysa dheh story sida aad u samaysay xalay ya wallahi inaan u sameeyay story kama sameeyay laakiin xaqiiqdan ka hadlaya sababta ilmaha u caynaysa mataqaanaa maraykan isku maraan nimid maraykan isku maraan nimid 2004 kii aan nimid I think ina 5 kii ahayd ma waqtiga imaatay adigana ma 6 kii ma ogi isku maraan imaanay hooyadayaan wadankan isla imaanay iyo walaalkay hooyadayaan garab taagnaa caawinayay aan warehouse u shaqo tagi jiray familkaygaan biilayay I was fucking 20 years old markaan maraykan imid 2004 ilaa iyo hadda family personal ahay aan familkayga support garayaa hooyadayaan garab taagnaa biilayay familkayga la biilayay gabadhayda Kenya wax ku baranaysay waa la biilayay waan biishay gabadhayda waa anaa biilanay Kenya wax ku baray waa u dacwooday waa soo dhoofiyay maraykan aan keensaday high school ay ka qalin jabisay military ay gashay way ka soo graduate garaysay naag cagaheed ku taagan waaye and she has a good future على كل حال waa ku dheeraaday xaqiiqdii intaasaan uga baxayaa maxaa la yiraahdaa una soo duceeyo labadan gabdhood waa laba gabdhood oo maxaa la yiraahdaa dee caana midna waa joker midna waxa weeyaan waa heesa marka waxa weeyaan waana kulay dad wada dhashay oo family ah inuu ilaahay bogooda burcad iska mariyo oo balaayada ka dhex shaqeynaysa dee ka dhex baxdo aroontanka inay ka dhex baxayse waxaana kaleeto waxaa kusoo socda dagaal iyo isriif iyo israasasho iyo hadda galaya soo waxaa garata maa marka waxa weeyaan qas iyo labkaas hobbi dadka Minneapolis la degan ama eheladooda cashiiradooda inay kala dhex galaan oo kala qaboojiyaan arrin wanaagsan ma ahan labadan gabdhood waxa weeyaan isku dhaaranayaan soo waxa garateen ma aha waxaan teeda kale u sheegayaa dadka qabiilada ku soo galahayo oo u kala hiilinayana inay baraha bulshada ka joogsadaan because dabba sii shidaysiin waxba ma wanaajinaysiin ma kala dhexgalaysiin xaqiiqda uma sheegaysiin labadan gabdhood inay kala joogsadaan haddii Naciimo Joker ay soo caytantay ee aysan waxba reebanin ma ahan maxaa la yiraahdaa kaba yare gabdhaha qabiilkeeda inay inta soo galaan yiraahdaan ayaa kaba yara caayas kaba yara afka ku yaala uma malaynayo gabar Soomaaliyeed inuu ku yaalo kaba yar sababtoo kaba yara hadday hadasho waa lagu kala yaacaya marka she chose waxay dooratay inaysan caytamin ayay dooratay soo waxa garateen maaha waxay dooratay inaanay caytamin laakiin ay keento waxyaalo macnaha jira waxyaalo ay ka hadlayso oo desaana wax u dhaceen iyo saanay ahayd iyo isma aqoonin iyo ilmahayga wax ka sheegtay anigoo Nairobi jooga iyo mar la dhahayay waa la xiray iyana waa maqlaynay Nairobi mar ay joogtay so I'm happy inaysan caytamin at this moment sababtoo waxay noqonaysaa saxan ku gudbay noqonaysaa okay ay wax ma tarayso wayna cadeysay naaguhu waxay isku caayaan soo waxa garateen ma waxaan u sheegayaa labada qabiil oo la soo kala safanaysa stanishiwa you have to ina kala joogsatiin ee aad waanisiin oo wax u sheegtiin intaasay idinkaga baahan yihiin dab aashidiin uma baahno labadan gabdhood xaqiiqdii waxaan idin leeyahay guys share like subscribe please thank you very much I hope inay gabdhahaasi heshiiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guys